السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك وحرن كنال كينا عافيماتك الدكتور كعافيماتك قويس كادو سو دواada waqtiguna haydeen wacnaado. waxaynu insha Allah maanta soo qaadanaynaa haweenaydu marka ay uurku horta xillima ayaa ugu macquulsan uur la qaada marka ay dhiigga caadada ama xaydka ay ka soo meeratay haweenaydu waqtiga uurka la qaado ee ugu macquulsan baynu doonaynaa inaynu isku tilmaamno. waa qodobka koobaad. qodobka labaad insha Allah waxaynu eegi doonaa haweenay uur leh hadii xidhiidh galmo lagu sameeyo ilmuhu dhaawac ma soo gaadhayaa baynu iyadana ka jawaabi doonaa ama laakiin arrinkaas isaguna waa siduu dhacaya. labada qodob baynu dabcan isu taagayna xaq hore aynu ku horeyno. haddaba marka ay heshay haweenaydu caadada 28 cishaba mar kamida ayay inta cumuuman kaama caadiga ay dhacdaa. haddaba xilliga aadka lagu rajo wayahay in ovulation samaysmo ama waxanta la soo daayo waxantaasuna isku diyaar garayso inay la kulanto spermkii ninka waa xilliga 12 ilaa 13 ilaa 14 bishu marka ay tahay 12 ilaa 13 ilaa 14 waa hadii ay heshay markay bishu tahay 28 hadday mar kasta hesho xilliyada ugu macquulsan waa 12 13 iyo 14 xilliga waxa la yiraahdaa waa most fertile. qodobka isaguna dabcan ka ku hoos jira haweenka qaar baa waxay helaan 5 iyo 30 cishaba mar bay helaan iyagana xilliga ugu macquulsan ee ilmaha la rajaynaya ee xilliga u baahan in galmo xilliga dabcan hadii la sameeyo possibility-ga in qofka in haweenkaas ay uur qaato ay badan tahay waxa weeyaan 19 iyo 20 iyo 20 iyo 21 waa marka ay heshay caadada 5 iyo 30 cishaba mar kamida. taasna xilligaas waa xilliga most fertile ka ah ee uxantu ay aad ka u bacrinsan tahay aadka waa dabcan u jeegna afwan ay xilliga aad ka u diyaarsan tahay inay uur qaato. taaynu nimaano haweenayda xilli kasta stage kasta ay ku jirto galmo xiriir waa lala sameyn karaa walow iyada success ama xilliga ay ku jirto ay dareenka ay galgacalka u sameynayso ninka ay kala duwan tahay oo marna uu hoos u dhaco marna uu sare u kaco oo wax la yaaho waxa jira inta badan decreasing iyo increasing labadaba way ku dhacdaa oo success drive-ka laakiin taynu ka hadlaynaa waxa weeyaan mashaakilaad ma keento galmadu ilmada waayo makaanka muruqyo fara badan baa ku hareeraysan laakiin waxa aad u muhiim ah xilliga bilaha koobaad ama usbuuciyada hore ee ilmuhu dhaco in uu xogaa cagta loo dhigo bilaha dambana dabcan in taxadaraad la yara muujiyo labada xilli ayaa iyagu muhiim ah in taxadaraad la muujiyo laakiin wax mashaakilaad oo ilmaha ay ku keenaysaa ma jirto. inahaas ayaynu dabcan ku soo ururinaynaa casharkeennii maanta. subscribe-ka inoo saara kanaalkeena caafimaadka dhaktarka caafimaadka qoyska waxa su'aalo qabtaan hoos baynu insha Allah kaga jawaabi doonaa. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.